السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن ونكسن صاحبيال هل كان ودولي ميديا حاينو سعودي تحنيه قبل الصومالية عن كسوكو بين التاريخ ضغط ما انتنا وحن كهلينا قبل كقدو كسو دواد صاحبيال موقال كان ما انتا قبل كقدو waa gobol ku yaara koonfur galbeed ee Soomaaliya magaala madaxda gobolkan waa degmada Garbaharey gobolka waa gobolka labaad ee ugu weyn Soomaaliya wuxuuna ku xigaa gobolka Bari waana gobolka kaliya ee kamid ah gobolada Soomaaliya ee xadka la leh laba dal Gado waxay ku jirtaa deegaanada Soomaaliyeed ee nooc walba la dagaalamay gumeystii reer Yurub waxayna xuduud la wadaagtaa ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo gobolada waqooyi bari ee Kenya haysato gobolka Gado waxaa dhaxmar wabiga Juba waxay ka tirsanaa jirtay goboladii hore ee Ingiriiska oo la baxay Jubada sare xilligii gumeystaha sidoo kale marka la isku geeyo 70 sano ayuu gumeystaha reer Yurub ka talinayeen Ingiriiska iyo Talyaaniga laba jeer ay ku dagaalameen gobolka Gado gobolkan waa gobol soo jiidasho leh oo barwaaqo ah marka loo eego gobolada kale ee Soomaaliya Gado waa gobol aan ku ah barashada diinta Islaamka iyo naxwaha si wax loogu barto waxa loogu imaan jiray gobolada fog iyo bartamaha iyo waqooyiga gobolada Soomaaliya sidoo kale gobolkan wuxuu aan ku yahay wax soo saarka beeraha waxa inta badan ka baxa khudaarta noocyadeeda kala duwan iyo dalagyada kale ee muhiimka u ah deegaankaasi degmooyinka gobolka Gado waxaa ka mid ah Baardheere Balad Xaawo Buurdhuubo Ceelwaaq Ceelcadde Garbaharey Luuq Ganaane